Colaado maalmihii u dambeeyay ka socday degmada Ceelifeen ee gobolka Sanaag ayaa sababay in aan ahaan lagu dilo wiil yar oo Sabiya kaasoo da'diisu tahay 7 sano jir. Dhacdadan oo gubka ah dhaqanka Soomaalida ayaa salka ku haysa colaado beeleedka degmada Ceelifeen ee u dhaxeeyay dadka deegaanka. Halkan waxaan kula kulannay maamada dhashay Salmaan oo habeennimadii xalay ahayd lagu dilay deegaanka Garuble oo hoos yimaada tuulada Bixin. Bal maamada waxaan ka wareysan doonaa siduu u dhacay fal dambiyeedkaas wiilkii yaraayo 7 jirka ahaa ee xalay fal dambiyeedka aad ka culus lagu geystay deegaanka Bixin. Ku soo dhawow hooyo. deeqax aasan jaamac hawshani waxay u dhacday 10kii habeenimo baa naloo yimi markii ugu horeysay xabad baa agteeda laga riday hadii laga ridayna nin baa nagu soo garublaha iyaga baa nagu soo wareegay duleedku maray markuu maray nin 3 nin baa noo yimi 3 nin ilmi yaraa oo hurde bay xabadii mid ku bilaab labadii kale anaga xabadii nagu qabteen aniyo inan kale mid yar oo kale aan dhalay marka halkii baa lagu dilay qofka yar lagu gogoy 3 xabadood bay u isdhaafsaday oo mid caloosha tahay soo boodin inanka yar markuu soo boodina way uu ku bilaabo xabadii buu la dhacay markuu la dhacayna caloosha mid ba kaga dhacday deegaana waa 2 iyo 3 wax kaga dhacay waa naga tageen waa carareen ugu dambeyntii maxay tahay fariinta u dirayso qaabaha kala duwan ee amniga ama dowladda Soomaaliland fariinta si aad u diraysaa maxay tahay ilmahan yare 7 jir buu yahay waa dadkan birmageyda weeye Dars Macruuf warbaahinta degmada Ceelifeen.